kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo noola socotaan halkani waa Suldaanka TV waxaad uga barataan Suldaanka TV warar saxan oo xaqiiqda ku saleysan iyo xogihii ugu dambeeyay ka jira Soomaaliya iyo caalamka. Qodobadan warka ku eegi doonaan waxa ka mid noqonaya xiisadii Puntland oo laba qaraxday iyo Siciid Dani oo ciidankii ugu badnaa ku daadgureynaya magaalada Boosaaso gobolka Bari. Waxaan eegi doonaa ismada maamulka Puntland oo mar kale kulan xasaasiya ku leh magaalada Boosaaso gobolka Bari iyo sidoo kale sidii Puntland looga qabalaa hogaamiye Dani xiisadan wanaagsanayn oo laga soo tabinayo gobolka Bari iyo sidoo kale ismada oo wacad ku maray in hogaamiye Dani uusan sii maamuli karin deegaanada Puntland dagaal laga cabsi qabin uu ka dhaco Boosaaso iyo ciidamo gaafureegaya gudaha magaalada Boosaaso shacabkii oo qalqal xoogan muujinaya wararkii ugu dambeeyay warka ayaan ku soo gudbin doonaa. ciidanka BSF oo isku diyaariyay inay la dagaalamaan Siciid Dani iyo kooxdiisa Aranjan la yiraahdo kadib markii Dani uu ka soo horjeestay xalka ismada Puntland. Maxamuud Diyaano oo taliska Mareykanka u diray fariin xasaasiya iyo burburinta uu Dani ku wada ciidanka BSF oo uu u sheegay saraakiisha Mareykanka ee qarashka ku bixinaya ciidanka BSF. warka ayaan ku soo gudbin doonaa. wararkeena kalena waxa ka mid noqonaya baarlamaanka Puntland oo la soo warinayo inay mooshin xilka uga tuurayaan hogaamiyaha Puntland Dani kadib markii uu jabiyay dastuurka maamulkaasi. haddaba ma dhaba in hogaamiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland uu warqado ka gudoomay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland kuwaas oo mooshin ka wada hogaamiye Dani wararkii ugu dambeeyay Dani oo Puntland burburinaya iyo sidoo kale wax garadka oo kacay warka ayaan ku soo gudbin doonaa. iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa xukuumadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hogaamiyo oo soo saartay go'aan la yaab leh iyo shacabka gobolada waqooyi oo ka soo horjeestay go'aankii Biixi ee ku saabsanaa in qofkii siyaasadda Soomaaliya ka soo muuqda xabsiga la dhigi doono afisna uusan heli doonin taasoo noqotay mid shacabku ay siyaabo kala duwan uga hadlaan iyo sidoo kale waxgaradka gobolada waqooyi ka soo horjeestay arrintan ay markaasi Muuse Biixi horboodayo oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya. saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV subscribe saara Suldaanka TV si share gareeyo muuqaaladan saaxiibada gaarsii si ay kula daawadaan like-ta iyo comment-iga hanaga iloobin qaybta hoose noogu soo qor wararka warbixinada iyo xogaha aynu soo gelinay YouTube-keena adigoo ka aragti dhiibanaya wararkaynu soo qaadanay ee ku saabsan xiisadda Puntland iyo sidoo kale Somaliland. Waxaa muhiim aragtidaadu iminkana u diyaar garooba qodobadii aan dul maray oo intaas ka dhameystiran ku bilowna warkeena. qaybtan sida ugu badan dhinaca Puntland ayaan ku eegaynaa iyo sidoo kale hogaamiye Dani oo burburinaya maamulkii 20 sano ka hor lagu dhisay ee Puntland. xiisadda Puntland ayaa laba qaraxday iyadoo Siciid Dani ciidankii ugu badnaa uu ku sii daadgureynaya magaalada Boosaaso gobolka Bari. isimada ayaana mar kale kulan kale sidii Dani looga badbaadi lahaa Puntland. xiisad cusub ayaana ka taagan magaalada Boosaaso kadib markii hogaamiyaha Puntland uu ka soo horjeestay xalkii ay keeneen isimada Puntland kuwaasoo shir ku qabtay Boosaaso. wararku siday sheegayaan hogaamiye Dani wuxuu door bidayaa inuu adeegsado ciidan intii uu heshiis la gaari lahaa Maxamuud Diyaano waxaana la soo warinayaa in shacabku ay wadnaha farta ku hayaan mar walbana laga cabsi qabeen dagaal uu ka qarxa Boosaaso iyadoo magaalada Boosaaso shacabka degan ay xilligan soo warinayaan in ay arkayaan gawaarici abdibilayaala oo ciidanka BSF ay saaran yihiin oo gaafureegaya gudaha magaalada Boosaaso. dhinaca kale ninka hogaamiye Dani uu magacaabay ciidanka BSF ayaa isigana loo ururiyay ciidan xoog badan. waxa wararku ay sheegayaan in ciidamada Dani uu Boosaaso ku sii daadgureynayo taliyahaasi lagu wareejiyo uu magacaabay kaasoo markaasi laga dejiyay guri ku yaala magaalada Boosaaso. labada ciidan ayaa mar walba marka ka dambaysa laga cabsi qabaa inay isku dhacaan kadib markii hogaamiye Dani uu ka soo horjeestay xalkii ay keeneen isimadu. arrintaas ayaana u muuqata mid Dani uu door bidayo inuu la dagaalamo Diyaano iyo sidoo kale walaalkiis Maxamuud taasoo ka dhigan mid haddii xabad ay ka dhacdo Boosaaso isimadu ay wacad ku mareen in hogaamiye Dani uusan sii maamuli karin Puntland. hogaamiye Siciid Cabdullaahi Dani oo horay u soo saaray warqad markaasi jawaab u ahayd go'aankii isimada iyo xalkii ay gaareen ayaa ka soo horjeestay go'aankaas. hogaamiye Dani ayaa si gaar ah uga soo horjeestay qodob ka mid ah go'aanka isimada Puntland ee ku baaqay in Generaal Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano uu qaato hubka hantida ciidanka iyo sidoo kale gaadiidka iyo guryaha ciidanku ay leeyihiin. Puntland waxay markaasi uga mahad celinaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland gaar ahaan waxgaradka isimada culimada ganacsatada nabadoonnada haweenka dadaalka ay muujiyeen sidii agaasimihii hore ee ciidanka ammaanka BSF
maxamuud cismaan cabdulaahi diyaano uu si hoofan ugu wareeji lahaa oo nabada xilka agaasimaha cusub ayaa lagu yiri warka ka soo baxay. sidoo kalena ciidanka BSF ee Puntland Security Force waxay markaasi ka mid yihiin lafdhabarta hay'adaha amniga Puntland iyagoo markaasi ka qayb qaata sugitaanka amniga guud ee Puntland gaar ahaan la dagaalanka ururada argagixisada. Mareykanka ayaana si gaar ah markaasi u taageeray BSF dhinacyada tababarada iyo qalabka ciidanka sidoo hadal ku dhigay hogaamiyadani. ciidanka BSF iyo hantidooda oo leh hub gaadiid guryo iyo sidoo kale saanad ay agab kalaba waa hanti ay leedahay Puntland shacabkoodu ay leeyihiin ayna markaasi u soo dhinteen una soo dhaawacmeen tiro fara badan oo naftood hurayaala iyagoo markaasi difaacaya amniga iyo dawladnimada Puntland iyo sidoo kale xasiloonida Puntland. ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland sidaa darteed waa nasiib darro in qayb ka mid ah isimadii dhaqanka ay markaasi shaaciyaan qoraal dhaawacaya maslaxadda iyo sidoo kale mustaqbalka ciidanka BSF ayna ku sheegeen in hubka hantida ciidanka amniga Puntland uu si gaar ah markaas u qaato agaasimihii hore. arrintaas oo meel ka dhac ku ah sharafka jiritaanka maamulkan qatarna gelinaysa amniga iyo xasiloonida dhiiri gelinaysana musuqmaasuqa iyo sidoo kale boobka hantida maamulka Puntland ayaa markaasi warka siciidan ugu muhiimsanaa taasoo ka dhigneed midow qaadacay guud ahaanba go'aankii isimada. warqadda ka soo baxda xafiiska dani ayaan u muuqatay mid loogu jawaabayay isimada taasoo ka dhigan mid xaaladii uu uga sii daray kadib markii xal ay keeneen isimadu kuna xaliyeen taasoo la soo warinayo in arrintaas ay noqotay mid filawaa ku noqotay in arrintaas ay noqotay mid filawaaya oo hogaamiyadani uu markaasi ogaado in isimadu aysan marnaba u heelinayn siciidani kadib markii mar hore uu ka soo xirtay albaabada maamulkaasi. isla wararkaas ayaan ku guda jirnaa. dhinaca kale ciidanka BSF ayaa isku diyaariyay inay la dagaalamaan siciidani iyo kooxdiisa Aranjan la yiraahdo kadib markii dani uu ka soo horjeestay xalkii ismadu ay keeneen. maxamuud cismaan cabdulaahi diyaano ayaa fariin kulul u diray saraakiisha Mareykanka ee Africom waxaana la soo warinayaa inuu ku wargeliyay in ciidanka BSF uu burburinayo hogaamiyadani sidaa darteedna uusan raalli ka noqon karin kuna aamini karin ciidanka BSF haddii uu wareejina uu ka arguda doono gacantana BSF-na uu ka dhigi doono koox isaga si gaar ah uga amar qaadata sida markaasi lagu qoray warqad diyaano uu u diray waa maxamuud diyaane saraakiisha Mareykanka ee Africom. Mareykanka ayaa la soo warinayaa in hogaamiyadana ay kala hadleen in xiisada uusan meeshaasi geynin ciidanka BSF-na aysan noqon ciidan qabiil balse ay noqdaan ciidan ka madax bannaan maamulka Puntland oo difaaca Puntland kaalin weyn ka ciyaara sida markaasi lagu sheegay warka loo diray Mareykanka ee maxamuud diyaane ka soo baxday warqadaasi. xiisadu weli way kacsan tahay mar walba marka ka dambaysa shacabku dhagaha ayay farta ku hayaan oo waxay ka cabsi qabaan in weerar uu dhaco taasoo la soo warinayo in arrintaas ay tahay mid si weyn looga walwalsan yahay shacabka reer barina ay u arkaan siciidani nin duulaan ku ah gobolka bari. dhinaca kale baarlamaanka Puntland waxa la soo warinayaa inay mooshin xilka looga tuurayo hogaamiyadani ay ka wadaan kadib markii uu jibiyay dastuurka maamulkaasi. xildhibaano ka badan 40 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada ee maamulkaas ayaa la soo warinayaa in warqadan u gudbiyeen gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil kaasoo la soo warinayo in ay markaasi xildhibaanadan dalbadeen in la dhaqan geliyo warqadooda iyadoo aan la ogeyn isbedelka ku imaan kara hogaamiyadana ayayna ku eedeynayaan inuu burburinayo ciidankii difaaci jiray Puntland sidaa darteedna aysan ku fiirsan karin dhaqankiisa guracan iyo sidoo kale dagaalka uu ku soo qaaday maamulkaasi. ugu dambeyntii gobolada waqooyi ee Soomaaliland markii aynu eegno warqad ka soo baxda xafiiska Muuse Biixi hogaamiyaha gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in cidii lagu arko arrimaha siyaasadda Soomaaliya maxkamad la soo taagi doono cafisna aan markaasi uusan weydiisan karin. xeerkan ayaa lagu sheegay in dembi iyo khiyaano qaran ay tahay in qof Soomaaliland ka soo jeeda uu ka qayb qaato siyaasadda Soomaaliya. arrintaas waxa durbaba ka soo horjeestay shacab weynaha gobolada waqooyi odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta waxayna xukuumadda Biixi ku sheegeen mid burburinaysa heshiisyadii la gaaray iyo sidoo kale in shacabku ay xurriyad ku noolaadaan sida markaasi ay noo sheegeen xubno ka tirsan salaadiinta Soomaaliland oo suldaanka si hoose ula hadlay. warqadda ka soo baxda xafiiska Muuse Biixi ayaa lagu sheegay in marnaba qof ka soo jeeda waqooyiga Soomaaliya uusan koonfurta Soomaaliya siyaasadeeda faraha la geli karin taasoo ku metoosan kara ciqaab xabsi maxkamaduna ay go'aan ka gaari karto sida markaasi lagu sheegay warqadda ka soo baxday xafiiska Biixi.
saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV sii sheer galay muuqaaladeena warkiina halkan ayaan ku soo koobayaa nabadgelyo.